dadku waxa ay hore ay u sameeyeen inay fuulaan oo dusha sare uga baxaan buurta adduunka ugu dheer, diyaarado dheereeya oo aan joogsi lahayn qaarado isaga gudbaan, isla mar ahaantana badda gunteeda soo taabtaan amaba dayaxa guudkiisa sare ku degaan. laakiin adigu weli safar dhulka ah oo dheer ma gashay? weligaa ma kugu soo dhacday inta caagadaada ama ubbadaada aad biyaysato in aad ka dhaqaaqdo dacalka ugu koonfureeya qaaradda Afrika si aad u gaarto dhinaca bari ee adduunka adiga oo aan raacin diyaarad, gaari, dooni, markab iyo wax kasta oo suurtagal ah in lagu safro? maya baan isleeyahay. jidka ugu dheer adduunka ee safar dhulka ah lagu galo iyada oo cagaha la maalayo waa jidka isku xira magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika iyo magaalada Magadan oo ku taala Suuriyada lagu magacaabo Star Sky ee badda Okhotsk ee waqooyiga bari ee waddanka Ruushka. haddana sidee bay ku dhacday in dhul intaa le'eg oo 3 qaaradood ku kala yaal la isu maro? waxay ku dhacday waxaad ka dhaqaaqaysaa magaalada ugu koonfureysa Afrika oo dhan ee Cape Town adiga oo xataa fatuurad wadan oo si caadi ah isaga lugaynaya, sahidaadana sita iyo agabka iyo qalabka caafimaad ee aad u baahan karto. waxaad isku diyaarinaysaa inaad jarto 14,000 oo mayl oo dhulka ah. hadda ogow, haddii aad ka baxdo Cape Town adiga oo u socda Oslo oo Norway ah kuna taala dhinaca waqooyi ee Yurub, waxaa kaaga bixi lahaa 6,500 oo mayl oo qura. laakiinse hadda waxaa lagaa rabaa in aad jarto 14,334 mayl si aad u gaarto magaalada Magadan. inta aad safarkan aad ku jirto, heerka jooga dhulku waa mid kula baaxaadegi doona. meelaha qaarkood waxaa gaari doontaa 123,000 oo mitir, taasi oo u dhiganta adiga oo 14 jeer fuulay buurta adduunka ugu dheer ee Everest. waa mushkilad adduunyada sida mawjad rogantee. muddo dheer ninkii nool mashaqo iyo layaab arag. waxaad sii jiiri doontaa webiyada Zambezi iyo Nile. waxa aad sii dhaafi doontaa badaha kala ah badda cas iyo badda madow ee ku kala yaala Afrika, Asia iyo Yurub. waxaa lagaa doonayaa in aad socod caadi ah aad ku samayso adiga oo ka soo bilaabaya Cape Town si aad u gaarto magaalada Magadan oo ku taala Ruushka. Google waxa uu kuu sheegi doonaa in aad socodka aad ku dhammayn karto 4,646 saacadood oo u dhigma 23,068 kilomitir. laakiin waa marka xagal quman loo soconayo oo la dhex marayo Afrika dhexe ilaa Masar laga gaarayo, taasi oo ah halka ugu dambaysa ee aad Afrika uga bixi doontid, ama 194 maalmood oo si toos ah oo aan kala joogsi lahayn. ragga socodku waa u door haddii mawdku daayee. waxaa jidka ku sii jiiri doontaa 1,153 maalmood oo u dhigma muddo 3 sano ah. South Africa oo dhan ayaad sii dhex mari doontaa ka hor inta aadan gaarin Zimbabwe. waa sii socon doontaa ilaa Mozambique. masas khatar ah ayaa jira oo muddo 20 daqiiqo ah kugu dili kara haddii ay ku qaniinaan ee iska jir. Malawi iyo Zambia ayaad sii dhex mari doontaa. Tanzania iyo libaaxyadeedii ayaa ku sugaya ilaa aad ka gaarto Uganda. waxaa lama huraan ah in aad socodkan marka aad ku jirto sii qaadato ul aad ku tukubto amaba aad cuskato. waa intaas oo dhagax isla kaa rogaa amaba bahal hoose kugu soo baxaa si aad isugu difaacdo. South Sudan ayaa halkaa ka geli doontaa si aad uga sii gudubto Suudaanta weyn ee Khartoum. saxarihii Suudaan iyo Egypt ayaa sii dhex mari doontaa. Masar kolka aad tagto waxaad sii dulmari doontaa buundada kanaalka Suez si aad ugu gudubto dhulka Falastiin, Israa'iil ilaa iyo Urdun, Syria uga sii gudub, kadibna Turkiga iyo Georgia, ka gadaalna Ruushka. halkan oo ay ka bilaaban doonto socodka ugu dheer intii hore oo dhanna wax kama jiraan iyo bikh ka dhigaya. dhulka ugu dheer ee laga rabo inaad dhex marto waa Siberia oo Ruushka ka tirsan. ogow, magaalada aad u socoto xitaa waxa ay ka shishaysaa Shiinaha, Japan iyo labada Kuuriya. jidkan la marayo ayaa loo aqoonsaday jidka ugu dheer ee adduunka ee lagu dhex lugeeyo. bal ka waran Yurub iyo Afrika oo aan waxba ka ahayn masaafadan la marayo. ka waran dadkii ka caban jiray saxaraha Suudaan, Libiya ilaa iyo badda Mediterranean-ka ee isku xirta Afrika iyo Yurub. ka waran gabayadii daraawiishta ee uu ku jiray gabaygii jidka adari loo maro. waxaas oo dhan waxaa beeniyey oo bilaash ka dhigay qofka ka soo lugayay Cape Town isaga oo u socda bariga Ruushka. ma doonaysaa inaad taariikh aad reebto?
ma jirto cid kaaga horraysa jidkan aynu ka soo sheekaynay ee haddaba noqo kan ugu horreeya ee intaa oo mayl socda haddii aad awooddo. qofka jidkan ku dhawaaqa inuu qaadanayo waddamada uu dhex marayo oo dhan waxaa laga siinayaa dalkugal bilaasha iyo ammaan. laakiinse maxay kuugu taal? qof ku dhaca waa la waayey. mawduucani ma dhiirigelinayo inaad halis geliso naftaada ee ka joog, balse waxa uu kuu iftiiminayaa jidka ugu dheer ee adduunka ku yaala ee lagu lugayn karo inuu yahay isla jidka aynu hadda ka soo warrannay. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay beejka Bulqaas Media, ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday, sidoo kale ha naga ilaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan, halkaana ay wax uga bartaan. wixii tale iyo tusaale ah iyo aaraa'diinnaba waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca kommentiska. aad baad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.